nin faqiir ahaa ayaa waxa uu jeclaaday gabar ka dhalatay qoys taajir ah. ninkani si kastoo faqiir uu ahaa, haddana qof dadaal badan oo aqoon leh ayuu ahaa. waxa uuna si bilaash ah uu ku dhiganay jaamacad tayadeedu ay sarayso. muddadani jaamacadda uu dhiganayna gabar ka dhalatay qoys taajir ah ayuu jeclaaday, iyaduna way ka heshay. gabadhani reerkeedii wiilka waxba isaga oo aanan la weydiin ayaa gabadha loo guuriyey. xitaa qarashaadka guriga waxaa bixinaya reerka gabadha. reerkani waxa ay aad ugu faraxsanaayeen in gabadhoodii guri ay u dhisayaan. sida dabiiciga ahna in wiil isaga oo wax lacag ah aanan laga qaadin way adag tahay in guri loo dhiso. laakiin ninkani nasiibka ayaa saaciiday, waayo gabadha ayaa si aad ah u jeclayd. isaguna waxa uu isku arkayay qof nasiib badan, laakiin ninkani ma uusan ahayn qof la soo dhowaysto. gabadhii ayaa waxa uu ku sameeyey cashar iyada iyo qoyskeediiba aanan iloobin. muddo marka ay isqabeen, ninkani gabadha waa uu ka heli waayey. markaas ayaa fikradihiisii shaydaaniga ahaa maskaxdiisii si tartiib ah ay ugu dhashteen. brobleemka ugu weyn ee gabadhani uu ku qabayna sida la sheegay waa inuusan xiriir jinsi qanciyaa inuusan ka helin. sidaasii darteeda waxa uu ku fakeray inta noloshiisii ka dhiman in gabadhani uusan la joogi karin, waa in meelo kale uu wax ka raadsadaa. waxa uu bilaabay in gabadha lacagaheedii inuu isticmaalo. tartiib maalinba lacago badan ayuu ka qaadan jiray. mar walbana brobleem oo dhaqaalo badan uu ku baxay ayuu keeni jiray. kadibna sidaasi ayuu lacagaha uu ku aruursan jiray ilaa ganacsiyo qarsoodi ah uu ka samaysta meelo kala duwan. hadafkiisuna waxa uu ahaa ninkani in gabadhani uu dilo, wax walba ee maal ah oo ay leedahayna in isagay ku soo wareegaan. dadka caddaanka ah intoodii badan waxaa lagu arkaa in qofka dhaxalkiisii uu ku qoro lamaanihiisa. hadba labadoodii midka nolosha baaqiga ku ahaada isaga ayaa waxa uu qaadan doonaa qofka kale waxa uu leeyahay. ninkanise waxa uu si qarsoodi ah uu ku bartay gabar kale ee uu ku qanacsan yahay. lacagaha gabadhani uu qabo uu ka soo qaadana gabadhaasi ayuu u keeni jiray. gabadhani reerka taajirka ka dhalatay waxay ahayd qof howlkar ah oo kambani ka shaqaysa. keliya qof ay nolosha la qaybsata ayay doonaysay. ninkani ayayna u aragtay qof daacada oo nolosheedii ay ku aamini karto. wax kasta oo ninkani uu ka qaado ma aysan xisaabin jirin, keliya ninkeedii ama qayb nolosheedii ka mid ah ayay u arki jirtay. si guud marka loo fiiriyay labadani lamaane, wax walba waxay ahaayeen dad isku fahma ilaa marka xiriirka jinsiga ah uun mooye. brobleemka dhexdoodii mar walba ay ka doodaanna xiriirkani sagsiga ayuu ahaa. gabadhuse arrintani stress badan ayay ku haysay. qofka nolosha ay la qaybsanaysa in iyada uu ka heli waayo. ninkanise si qarsoodi ah marka uu gabar kale xiriir uu la sameeyey maalin maalmaha ka mid ah, gabadhani taajirada ahayd jaabkiisii waxay ku aragtay faraanti iyada aysan lahayn. waxaa ku dhashtay shaki. kadib ayay habeenkii waxa ay weydiisay faraantiga halka uu ka keenay. ninkii waa uu diiday in mawduucaasi uu kala hadlo. habeenkii iyada oo la isku buuqsan yahay ayay sidaa ku seexdeen. gabadhuse go'aankeedii waxa uu ahaa in jawaab ay u hesho faraantiga halka uu ka imaaday. ugu dambayn ninkii waxa uu bilaabay jawaabo aanan caqligal ahayn in gabadha uu sheego. gabadhii way fakartay in badan, kadibna waxay u sheegtay arrintani aabbaheedii in ninkani uu khiyaanayo. gabadhani aabbaheedii dad isku wanaagsan oo waxba aanan kala qarsan ayay ahaayeen. dhacdada faraantiga kadib gabadhii dabeecaddeeda iyo kalsoonida ninkani ay ku qabtay aad ayay u soo yaraatay. heer waxa ay gaareen inay isla noolaan kari waayaan. ugu dambayn iyada oo marxaladda dhibka badan la isku sabrayo ayaa habeen oo dhan ninka uu maqnaa. saqdhexe ayuu albaabka soo gangaraacay. xaaskiisii iyada oo ku fakaraysa in gabar kale uu ku maqnaa ayuu imaaday. halkee ayaad ku maqnayd markii la weydiiyeyna waxa uu dhahay dhalinyaro saaxiibadeedii ahaa ayaan ku maqnaa. laakiin jawaabtani mid lagu qanci kara ma aysan ahayn. si degdeg ah gabadhii waxay amar ku bixisay in alaabtiisii uu qaato, gurigana uu ka baxo. saqdhexe habeennimo ayuu ku qasbanaaday in guriga uu ka soo baxo. sababtu ah guriga isaga ma lahayn, isaga oo waxba aanan laga qaadin ayaa gabadha loo guuriyey. xilligani waxaa qoyskani u joogay laba gabdhood oo yaryar ah. markii bannaanka habeenkaasi loo soo ceeriyey kadib wuxuu xaaskiisii bilaabay inuu u soo diro maseejyo tiro badan iyo inuu ku muujiyo khilaafka soo kala dhex galay inuu aad uga xun yahay. maseejyadani tirada badan ee aanan looga jawaabayn marka uu arkay waxa uu xal u arkay ugu
dambayn in guriga uu u soo diro waraaqado jacayl iyo ubax oo isku dhex jira. Albaabka guriga hortiisii ayuuna dhigay, wuuna ka tagay. Gabadhii marka ay guriga imaaday ubaxa iyo waraaqada albaabka loo dhigay ay aragtayna, qalbigeedii ayaa naxariis soo gashay. Waxa ayna ku dhahday, si aad ciyaalkaadii yaryarka aad u aragto isbuuc guriga waad imaan kartaa. Ninkanise ujeedkiisii ayaaba ahaa kolkani in gabadha uu dilo. Maseejyada iyo ubax uu u soo dirayna waxay ahaayeen been. Qalbigeedii in mar kale uu ku guulaysto uu doonayay. Gurigana waxa uu kolkani u soo noqday isaga oo kiimikaalis sun ah wada. 2 maalin kadib markii uu joogay habeenkii 3aad, biyo ayaa waxa uu ugu daray sun uu sheebaan ka soo qaaday. Gurigana waxaa jooga labadoodii oo keliya iyo ciyaalka yaryarka ah. Marka uu arkay in gabadha sunta ay waxyeelaysay, xaaladeeduna ay xun tahay, inta uu soo qaaday ayuu hosbitaal keenay qaybta emergency-ga, isaga oo ku qeelinaya xaaskiisii ayaa xanuunsan, si degdeg ah lagu caawiyo. Dhaqaatiirtii durba waxa ay geliyeen koomo xaaladeedii oo xumeed darteeda. Ninkii hosbitaalka dhexdiisa sida qof jahwareersan oo kale intuu iska dhigay ayuu hadba dhinacuu u soconayay. mar walbana dhaqaatiirta ayuu su'aalo 1 daqiiqo gudaheedii dhowr jeer uu weydiinayay. Sida dhabta ahna qof walwalsan ayuu u muuqday. Taleefoonka hosbitaalka ayuu kolkani waxa uu ka soo wacay gabadha reerkeedii. waxa uuna ku dhahay, gabadhiinii xaaladeedii waa mid halis ah, hosbitaalka ayaan keenay, kooma ayaana la geliyey, wixii ku dhacayna ma aqaano. Aabbaheedii iyo qoyska gabadha ayaa si degdeg ah hosbitaalkii ku soo gaaray. Ninkii walwal gabadha aabbaheedii inta uu garabka ka qabsaday ayuu ku ilmeeyey. 5 maalin ayay gabadha koomada ku jirtay. Ugu dambeyn sidaasi ayayna halkaa gabadhii ugu dhimatay. Geerida gabadha kadib, aabbaheedii waxaa ku dhashtay shaki aad weyn. Waxa uu maamulaha hosbitaalka uu faray in gabadhiisii hosbitaalka aanan laga bixin karin ilaa amar dambe. Xarunta booliiska ayuuna u tagay gabadha aabbaheedii, waxa uuna ku dhahay, gabadheedii waa la dilay, ninka dilayna waa ninka gabadheedii qaba. Waxaan doonayaa in arrintani dad khubaro dambibaarayaal ah inay igala shaqeeyaan. Gabadha aabbaheedii waxba ma uusan ogeyn, laakiin waxaa dareen weyn ku abuurtay gabadhiisii oo fiicneed in hal mar lagu soo boodo, uuna ka war hela gabadha oo hosbitaal ku jirto. Arrintani in loo iftiimiyo oo shakiga laga saaro ayuu doonayay. dambibaarayaashii gabadha meydkeedii waxay u direen shaybaar, kadibna waxaa gabadha aabbaheedii lagu dhahay, maxaad ku caddayn kartaa in gabadhaadii ninkeedii uu dilay? Markaas ayaa waxa uu sharxay wax walba ee gabadha aabbaheedii ay u sharxi jirtay, sida gabar kale in ninkani xiriir hoose inuu la leeyahay, iyo in gabadheedii uusan ku qanacsanayn. dambibaarayaasha marka ay dhegaysteen waxay sidoo kale waceen ninkii gabadha qabay, waxaana laga codsaday inuu sharxo wixii gabadha uu ku arkay iyo sida ay wax u dhaceenba, iyo haddii ay jiraanba dad uu ka shakisan yahay ee gabadhani dili karaa. Waxa uuna dhahay ninkii, khilaaf yar oo kooban oo ina soo kala dhex galay muddo kooban kadib un mooye, wax kale oo labadeeni inaga dhexeey aniga iyo xaaskaygii ma aysan jirin. Khilaafkaasina waan xalinay, ugu dambeyn waan heshiinay. Waxa uuna sii raaciyay, xaaskaygii waxay igu dhahday guriga ku soo noqo, anigana guriga ayaan ku soo noqday. Dhowr habeen kadib, iyada oo qolka fadhiga afkeedii xunba uu ka soo daadanay ayaan arkay. Naxdin darteeda hosbitaalka igu dhowaa ayaan keenay. Horaanna wax xanuun oo sidani oo kale oo aan ku ogahay ma aysan jirin. dambibaarayaasha sidoo kale waxa ay aadeen gabadha dhimatay saaxiibadeedii, haddii iyaguna wax ay ka shakisan yihiin oo gabadha dili kara haddii ay jiraan ama in kale. Ninka gabadha qabay ee dilayna xilligani waxa uu isku muujinayay qof aad u murugaysan oo xaaskiisii ay ka dhimatay, in aanan la soo qaban doonin ayuuna ku fekerayay. dambibaarayaashii gabadha dhimatay saaxiibadeedii marka ay su'aalo ay weydiiyeen gabar ka mid ah gabdhaha ay mashruuca kambaniga isla wadeen, ayaa hadal cajiiba dambibaarayaasha ku dhahday, mashruuca kambaniga waxaan ku ahayn dad aad u badan. Maalin maalmaha ka mid ah wiilasha mashruuca inagala shaqaynaya ayaa mid ka mid ah waxa uu la baxay lacaga aanan loo ogolayn. gabadhaasi dhimatay ayaa aragtay, kadibna waxa uu ku dhahay, labadeeni oo keliya sirtani ha inagu ekaato, qof kalena
hala wadaagin. laakiin magaca gabadhuna dadka mashruucani ku saxiixan maadaama ay ahayd way diiday in ay ka aamusto. waxa ay doonaysay in nafteedii ay beri yeesho. wiilkii ayay dacwo ku furtay ilaa maxkamad ayaana la isla tagay. maalin ayaa gabadha waxay baabuurkeedii ka heshay waraaqad ay ku qoran tahay kiiskani dacwada ka haq haddii kale waqti dhow waan is arki doonaa. laga yaabay in wiilkaasi dacwada ay ku furtay darteeda inuu u dilay. hadal macquul ah ayuuna u muuqday si degdeg ah dembibaarayaashii wiilkaa loo tilmaamay ee mashruuca kambaniga iskala shaqaynayeen ayay gurigiisii imaadeen. waxa ayna ku dhaheen adiga ayaan kaaga shakisannahay in aad ka dambaysa dilka gabadhani sababo aarsasho darteeda. wiilkii waxa uu dhahay weligay kuma aanan fekerin in qof aan dilo. haddii gabadhaasi aan dili lahaana ka hor dacwada iyo kiiska maxkamadda ayaan dili lahaa, waayo maalmo badan ayaa ka soo wareegtay. dembibaarayaashii waxay ku dhaheen si aad naftaadii u badbaadiso haddii aan waraysi kugu yeerno xafiiska imaw. waan ogolahay ayuu wiilkii dhahay. sheekadu marka ay halkaan maraysay waxaa sheebaarka yimid caddeymihii gabadha dhimatay jirkeedii laga helay, waxaana waraaqada sheebaarka ku qornayd in sun gabadha ay ku dhimatay. iyada oo dembibaarayaasha ay la yaaban yihiin ayaa waxaa xafiiska sidoo kale imaaday gabadha dhimatay aabbaheedii isaga oo waraaqad gacanta ku wada. waraaqadaasina waxay ahayd rasiid ninka gabadheedii qabay sheebaar in kimikalis uu ka soo iibsaday. waxa uuna dhahay gabadha aabbaheedii sunta gabadheedii lagu dilay halka uu ka soo gatay waa halkani. waraaqadani ayaana guriga ka soo helay. waraaqadii dembibaarayaasha waxay u geeyeen shaybaarka waxayna ku dhaheen taariikhdaasi dhammaan wixii la idinka gatay inaad ina tustaan ayaan doonaynaa. waa loo soo saaray dembibaarayaashii liiska dadka maalintaas oo dhan wax laga iibiyey. ninka gabadhani qabay ayaana halkaa ka soo baxay, waxauna halkaa uu ka iibsaday shaybaarka kimikali suna. waxaa lagu qasbanaaday kolkani ninka gabadha qabay ee muugaysnaa in dib mar kale loo waco, waxaana lagu dhahay gabadha adiga miyaa sumeeyey. waxa uuna dhahay maya, sidee xaaskaygii oo 2 carruur ah ii dhashay aan u sumayn karaa. waxaa la weydiiyey kimikali suna weligaa ma isticmaashay. waxa uu dhahay weligay ma aanan isticmaalin, maba aqaanaba kimikali suna qaabkay u eg yihiin. markaas ayaa waxaa hortiisii lasoo dhigay waraaqada caddaynta ahayd ee sunta uu ku soo iibsaday. markaas ayaa waxa uu dhahay sida qof markaa uun wax soo xusuustay oo kale, suntani waxaan ka soo iibinay aniga iyo xaaskaygii shaybaar waxaana u isticmaalaynay guriga. waxaa xilligaana guriga ka buuxsamay cayaano, meel walbana xasharaad ayuu guriga noqday. suntani ayaana la inoo sheegay in cayaanada ay dilaan, sidaasi ayaana u soo iibsanay. waxaa lagu dhahay ma ogoshahay si aad isku beriyeesho in makiinada beenta lagugu xiro. waxa uu dhahay waan ogolahay dabcan. kadibna makiinadii inta lagu xiray ayaa dhowr su'aalood oo haa iyo maya oo keliya looga jawaabo ayaa la weydiiyey. natiijada testiguna waxaa soo baxday in ninka uu ku dhacay, waayo su'aalaha la weydiiyey oo dhan badankoodii been ayuu ugaga jawaabay. arrintu marka ay halkani maraysa meel walba waa ay qabsatay. joornaalada iyo telefishinada dhacdadani ayaa lagu daabacay. ninkii looma sheegin in natiijada uu ku dhacay, laakiin su'aal kale ayaa la weydiiyey. xaaskaadii ma laga yaabaa in iyada keligeedii ay isdishay? waxa uuna dhahay xaqiiqdii waa mid suurtagal ah sababtoo ah brobleemka ugu weyn ee dhexdeennii yaalay iyadana istresska badan ku hayay waa xiriirka jinsiga. waxa uuna gaarsiisanaa heer la dhihi karo way isdili kartaa. ninkani iyada oo meel lagu haya ayaa waxaa shaybaarka imaaday haweeney gurigoodii ka shaqayn jirtay. waxa ayna dhahday dhacdadani joornaalada meel walba marka ay qabsatay waxaan shalay arkay in sun gabadha ay ku dhimatay. aniguna ninka gabadha qabay waxa uu hadda ka hor ii dhiibay bac, waxauna igu dhahay bacdani baabuurkaadii geli meel uusan qofna arki karin, gadaal dambe ayaan kaa qaadan doonaa. waan fiiriyey bacda, wax sida budada oo kale u eg ayaa ku jiray, ilaa hadda xitaa ma taaban. baabuurkaygii gadaashiisii ayay ku jirtaa. ma laga yaabaa waxaasi budada in sun ay yihiin, weliba sunta gabadh ay ku dhimatay. khubaro shaybaaristayaal ah ayaa gabadhani loo soo diray, kadibna baabuurkeedii waxaa lagu arkay nooca sunta ee gabadhani ay ku dhimatay. intaa kadib ninkii waxaa ku caddaatay dembiga, si kastoo isaga dembiguu isaga fogeeyo. waxa uu si degdeg ah u qabsaday ninka marka uu arkay in caddeemo badan ay soo muuqanayaan afukaati. kadibna telefishinada inta ay soo hor istaageen ayaa waxay dhaheen gabadhaasi dadka ugu macquulsan ee dili kara waa walaalkeedii, waa aabbaheedii ama wiilka ay maxkamadda isla tageen.
sidaasi ayuuna ninkani iyo abukaatiyaashiisii isku difaacayeen. ugu dambayn maxkamadda ayaana la hor keenay. kadibna waxaa soo ifbaxay ninkani gabadha sida qarsoodiga ahaa xiriirka uu la lahaa. wax walba ee sirah marka uu arkay in ay soo ifbaxayaan waxa uu ku qasbanaaday in xaqiiqada uu sheego. kadibna waxaa lagu xukumay xabsi daayin ah. $1 milyan ayuu shubay si loo soo daayo. muddo kadib haddana xabsigii ayaa dib loogu celiyey. maantana xabsi ku yaala Texas ayuu ku jiraa. waxaana la sheegaa 3 mar inuu dalbaday in bannaanka loo soo daayo, laakiin waa laga diiday. waa dhacdo naadir ah nin nolol fiican gabar ay u samaysay inuu isku dayay inuu khiyaano. inta badan ficilada noocani oo kale ah waxaa lagu arkaa dumarka. ninkanina si kastuu isku qaray, ugu dambayn isaga oo gabadhiina aanan dhaxlin cadaaladda ayuu hor imaaday.